duleedka Muqdisho barakacayaasha soo gaarahay ma ahan kuwa hela daryeelka ay filayeen iyaga oo soo galay socdaal dheer oo mahadadiisa wata. Muqdisho ayay ugu dambeyn yimaadeen welina waxaa haysata nolol adag. Daafaha degmooyinka ku yaala ee Muqdisho ayay yimaadeen iyaga oo aysan jirin cid u maqan, laakiin weli waa rajo ku nool. Waxa ay leeyihiin mar waan ka bixi doonaa noloshan. Bilowgii imaanshiyahooda mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa barbar istaag u muujiyay balse joogto ma noqon. Sida mas'uuliyiinta kaamku ay inoo sheegeen, hadda bilaha lagu jiro waa kuwa ugu kulul tirsiga maalmaha sanadka, iyaguna waxay ku nool yihiin baco lagu taagay qoryo caadi ah. Dhexdooda ayay iscaawiyaan maadaama hoggaan dowladeed oo joogto u garab istaagahay uusan jirin. Waxaana tallaabooyinka ay isugu gurmanayaan ka mid ah in xubno horjoogayaasha kaamku ay magacaabeen ay tagaan xaafadaha habeenkii dadka dhaqan ay degan yihiin oo cunto, dhar iyo wixii la mid ah ay ka soo qaadaan. Maama Sahra oo ah hooyada isku dubarida cuntooyinka lagu kariyo kaamkan ayaa inooga waramaysa qaabka dadka ay u caawiyaan. qaabkeen lagu soo gaarana waxay tahay anaga deegaan ugu nahay walaalaheen cabaaran ka soo horeynay meesha anaga waa degannahay maadaama meesha aan degannahay ayagoo dayacaan oo daruufaysan oo rafaadka oonka ka muuqda iyo aragnay naylaamiga ayagoo lagu soo daadiyay waan soo xareenay waxaan ka tashanay aan shirka qaadanaysan u degannahay kaamka marka maadaama walaalaheen ay baahan yihiin waxaan naga soo korbaxday qoys kasta inta lacag laga heli karo nin waliba wixii dantiisa ay tahay sadaqo oo baxsanayo in maaragta iska aruurino ku soo adeegano aan badal ugu karino. Barakaca oo ay ka wada siman yihiin marka laga soo gudbo waxaa ku jira kuwa baahiyo gaar ah qaba dadkan. Dumarka ayaana ugu badan oo abaarta awoodeed qaar badan oo hooyooyinka ayaa u geeriyooday sida ay sheegayso Caasha Cabdi oo 7 carruur iyadu haysata. waa soo barakacana lama deerood sabir ma la goosan abaar xoolihii waa dhamaadeen ilmihii adoog 9 jir ah sariir iyo fuula ara wax la siiyay qaaja daddishi si loo qariiba inta wax laga dhiib hadii waa soo kala roor dadku ma soo socon ilmihii waa jiifaan intaas dib ay la soo wada intaas hadda gurmad ma hesheen hadda halkan joogtaan kaamkan uu joognay hadda na imaan kaab waa loo kooway gurmad ma heshaan marka cunto iyo biyo iyo jiif iyo wax ma heshaan waxa misay wal abarad iyo awadaan afkayna naagtana guri noo siis biyo noo siis jisaka la waa soo dhamaanay dhuqar soo dhayn in si siman ay u helaan gargaarka gaar ahaaneed loo soo ururiyo iyo hab maamulka kaamka waxaa mas'uul ka Farxiye Xasan Maxamed goobjooga ayay u sheegtay in gurmadka ugu badan ay ka helaan shacabka kaalmada masaajidda laga soo ururiyay iyo horumarada kale iyo hormuudka kale ee bulshada. Santartan waxaa aad iyo aad maanta dad barakaca u yimideen isbuucyadii aan soo dhaafnay ka bilow jimcadii hore ilaa jimcadan dadkan waxay meesha ugu soo tiidsadeen 190 amaanta dadkan waxay seexdaan meel barxad oo bannaan oo wax ma aragtay joogo oo ma aragtay shacabka masaakiinta joodan 190 waxay marta tan nool yihiin nolosha tahay amaantooda inay aamaan 100% amaantaas oo nala saacido deegaanka daris baalay midaas tabacdiyeed waxay haystaan dadkan biyo haystaan biyahaas oo siiso maaragtay ebel xirada lahaay waxa taloo joodo dad aad u soo barakacay dadkaas waxa taatuleeyaan shacabka Soomaaliyeed masaajidyada culimaadiinta indhe darata dumarta iyo amniga deegaanka. Gurmadka abaaraha ee wax ka qabashada la tacaalida dadka gobolada dalka ka yimid ee Muqdisho soo gaaray waxay u muuqataa in ay maqan tahay kaalintii dawladda marka la eego caawinta dadkaas ay helayaan. Hadda galangal weyn dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir kuma lahan qaabka loo maareynayo nolosha dadka ka soo barakacay goboladii ay ku noolaayeen oo abaartu sababtay ee dawladeeda Muqdisho soo gaaraya. Calaadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.